لا شك أن محمدًا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada barnaamijkan nooleynta islaamka waa barnaamij diini ah oo aanu idinku soo gudbino macluumaad ku saabsan jamaacada Ahmadiyya waxaa maanta ila fadhiya Ismaaciil Axmed oo barnaamijkii hore aan ku wareystay marka wareysigii ayaanu halkii ka sii wadaynaa kusoo dhawaada Ismaaciil barnaamijkan labaad waxaad barnaamijkii hore aad noo sheegtay markii aad jamaacada soo gashay ee mas'alooyin fara badan oo aad si u fahamsanayd aad khaldan oo aan waafaqsanayn kitaabka quraanka ah markii jamaacada aad soo gashay aad si sax ah oo waafaqsan kitaabka quraanka ah aad u fahantay oo fahamka sax aan aad ka heshay jamaacada Ahmadiyya waxaa noo sheegtay inaad qabtay in ciisamada ku nool yahay waxaad fahantay oo jamaacada Ahmadiyya ka fahantay in Nabi Ciise uu geeriyooday oo dunida ku geeriyooday waxaad u haystay Nabi Aadan oo samada ka soo dhacay oo samada ka yimi isaga Xaawa waxaad ka fahantay jamaacada Ahmadiyya in Nabi Aadan uu ahaa nabigii u horeeyay alla doortay marka alla doortayna uu dunidan ku noolaa oo dadkii marka waqtigaa joogay uu ka mid ahaa balsan ahaa qofkii u horeeyay oo alle uu doorto oo nabi noqda waxaad u haysatay aad noo sheegtay Nabi Idriis in samada loo qaaday waxaad ka fahantay jamaacada Ahmadiyya in Nabi Idriis aan qof ahaan jir ahaan samada loo qaadin ee soo qaadista ay tahay maqaam dhawaansho iyo magaranaysa iyo darajo ahaan ay tahay waxaad iyana noo sheegtay in rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam aad u haystay habeenkii Mi'raajka in jir ahaan samada loo qaaday waxaad ka fahantay jamaacada Ahmadiyya in rasuulka calayhi salaatu wasalaam Mi'raajku uu ahaa Mi'raaj ruux ahaan alle uu dheelmiyay oo alle uu ruuxiisa dheelmiyay oo ruuxiisa ayaa markaas samada loo qaaday oo samada tagay su'aalihii aan ku weydiinay halka ka sii wadaynaa intan waxay noo sheegaysaa ambiyada alle in aanay samada ka iman ambiyada alle samada kama yimaadaan kama soo dhacaan ma qabtaan ambiyada alle waxa ay ka dhashaan dadka loo soo diro marka afartan qise uu Ismaaciil uu yiri waxa ay fureen fahamkii diinta islaamka ama fahamkii kitaabka quraanka afartuba waxa weeye waxa la xiriiraan arkaan iimaanka ay la xiriiraan marka waad arkaysaa in fahamka Ahmadiyya uu sax yahay oo ambiyada alle aanay ka iman samada aanay ka iman marka su'aalihii baan rabaa in halkii ka sii wadno su'aasha aan rabaa hadda inaan ku weydiiyo waxay tahay dajaal maxaad ka qabtay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت walaal runtii waa sax dajaal markii aan jamaacada ka hor inta aan jamaacada la kulmin waxaan ka aaminsanaa nin dheer oo il ka cawiran
oo madaxiisu daruurta uu dhaafayo aad u dheer dameer dheer wato weyn oo aad iyo aad baaxad u weyn dameer leh marka waa nin dheer oo waa qof dheer oo waa qof laakiin dheer daruuraha madaxiisa daruuraha kor u dhaafayo oo hal illa la leh isha midigta bidixda ka cawiran isha midigta ka cawiran bidixda leh maaruuxa xadiistu waxa la inoo sheegay in isha midigta uu leeyahay isha ay u eg tahay camba qaaday waa sax oo isha bidixdana ay fayow tahay oo wax kasta uu ku arko waa sax marka waa nin ilaahay awood siiyey oo awood garanaysa aan xad lahayn alla siiyey waan gartay sidaas ayaa markaa jamaacada ka hor inta aanan jamaacada la kulmin aan ka aaminsanaa ka fahamsanaa marka waxyaabaha weeye khuraafaadka weeye ee marka muxuu ahaa ay la sharxayo dajaal la sharxayo la yidhaahdo waa nin dheer oo daruuraha dhaafayo oo shanaya cadaab samaysanaya oo waa sax ilca waran oo muxuu ahaa ilaahay awood siiyey oo ilaahnimo sheeganaya janna uu sameynayo leh jannaan samaysanaya dadka jannada gelinayo iyo cadaabna sameynayo oo uu leeyahay cadaabta wixii asaga amarkiisa diida cadaabta uu gelinayo wixii isaga dhaqan xumadiisa iyo waxa uu doonay yeelana jannadiisu gelinaya laakiin aan janno ahayn taasaan janno ahayn wixii isaga ka hor yimaada wuxuu gelinaya cadaabtiisa oo waxa weeye waa u cadaadinaya waa sax marka waxa weeye waa qof يعني سيدا حديث ليناغو شيغ waa awood buu leeyahay waa sax waxa leeyahay wuxuu tagayaa wadan meel dhulka ayuu amraya oranaya khayraadka ka soo saar samadu ayuu roob ka keenaya samada ayuu oranaya roob ka keenaya biyaha ayuu xabisaya ayuu xabs gelinaya biyaha khayraadka dunida waxa leeyahay waxay u dabagalaan sida shinuda ay u dabagasho malabka u dabagasho waa sax marka waxa wada arkaysa waxa weeye waxa xadiis muxuu ahaa waxay noo fasirayaan qof awood ballaaran xoog leh alla siiyey waa sax oo marka adduunka xukuma oo adduunka ku amarka ku taagleeya oo cir iyo dhulba adduunka markaa isagu gacanta ku haya oo xukuma adduunka oo dhan meel kasta adduunka ka mid ah uu tagayo oo ku fidiyo awoodiisa uu ku tagayo waruna xadiis waxa lagu sheegay dameer wato dameer buu wataa uu adduunka dhan ku qabsanayo marka aan ku horeyno dameerka sifooyinka dameerka maxaa kamid ah sifooyinka dameerka waxaa kamid ah in dameer aad u weyn baaxadiisa leh uu wato dameerkaasna uu cunayo uu ku socdo dab meesha dameerada aan garanayno uu awska ee ka cunaan isaga dab buu ka cunayaa dameer caadiya maaha dameer caadiya maaha waruna xadiis waxa lagu sheegay in dab cunayo waa sax waxa la xadiis la inoogu sheegay inuu badda galayo uusan quuseyn uusan degeen inuu samada uu daruuraha dhaafayo lafteedu duulayo daruuraha uu dhaafayo nacam inuu hawada daweesha uu ka dheereynayo inuu aad u laftigeedu xadiista qaar waxa la inoogu sheegay inuu qoraxda ugu horeynayo qorax ku dhaca waa sax marka waa dameer awood leh oo badda gelaya oo duulaya oo dab cunaya dadku markaa xagee bay ka fulayaan dadka caloosha ayuu ku qaadayaa dadka dabkaasna waxba gaarsiin mayaan marka waa dameer dadku ay ka raaci karaan gudihiisa fuli karaan waa sax isagoo dab cunaya ayaan dabkaas waxba yeelin dadkan fuushan ee la socda isaga saaran marka dajaal waxa weeye waa ninka dameerka ha wata waa sax muxuu ahaa adduunka meel walba ku gaaraya ilbiriqsi ku gaaraya wuxuu raashin iyo muxuu ahaa khayraad uu doonayo magaranaysa inuu ama meel ka qaado meel kale uu geeyo dameerkan uu adeegsanaya waa sax marka dameerka marka saa u eegto waxaad moodaa in uu u eg yahay muwaasalaadka casriga ah oo maanta jira waa sax sida muxuu ahaa masalan maraakiibta oo kale tareenka oo kale gawaarida oo kale diyaaradaha oo kale waa run
waa run marka sifooyinka aad eegto muxuu ahaa dajaal aad dameerka aad eegto waxa weeye dameerka badda galaya aan degaynin doorto waxa weeye waa maraakiibta weeye dameerka duulaya ee daruuraha madaxa la dhaafayaana waa diyaaradahan muxuu ahaa markaad fuusho waxay dul maraan daruuraha ay dul maraan waa sax dameerka dabka cunaya waxa weeye gaadiidka kale oo dhan sida gaadiidka aad sheegtay muxuu ahaa tareemada iyo baabuurta kale ee magaranaysa maanta la isticmaalo marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo sharxayay oo uu inoo tusaale inoogu sheegay muwaasalaadka iman doona aakhir zamanka iman doona laakiin waa dameer cajiib ah dameer ay magaranaysaa aan muxuu ahaa aan waa dameer ilaahay awood sida ilaahay dajaal uu siiyay awoodda waa dameer awood li weeye waa sax marka haddii markaa adeegto fasirkan adeegto sifooyinka dameerka halkaa waxaad moodaa inaan ka fahmi karno dajaal qofka uu yahay waxa uu yahay dajaal waa sax midda kale dameerka waxaa axaadiista qaar lagu sheegay in labadiisa dhagood in dhegtiba ay leegtahay 30 diraac waa sax ama 30 baac 30 baac naam labada dhagood inta u dhaxaysana waxaa axaadiista qaar laynoogu sheegay in ay isu jiraan labadiisa dhagood 40 baac dadkuna ay fuulayaan labada dhagood dhexdooda u dhaxaysa waa marka sifada caynkaas markaad eegto marka diyaaradda misan labadeeda baal markaad eegto waxa weeye waa 30 kan diraac ee leeyahay baalasha kala isku jiraan waxa weeye dhagtiba waxay leegtahay ayaa xadiista inoogu sheegay 30 diraac ama 30 baac waa sax marka labada baal ee diyaaradda markaad eegto dambidiba intaas ayuu leeyahay waa sax xadiiska waxa la inoogu sheegay in dadku ay ka raacayaan labada dhagood dhexdooda waa saas diyaaradahan dadku labada baal dhexdooda ayuu ka xambaaranaya dadka ku qaadanaya dameerkan waa arkaysaa inuu yahay muwaasalaadka casriga ah ee maanta la isticmaalo waa sax rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma oran waa awr ama waxa weeye faras ama waa faras ma oran taas ayna cajiib meel ahayn aad iyo aad waa la umuusan oran marka waa dameerkaasi maantayna dadku waxaa loo baahan yahay in nolosha ay ka dhex arkaan maantay ee ku nool yihiin waxaanoo dhanna waxay imaadeen marka aad si u guda gashid qarniga hadda la soo dhaafay 1900kii marka imaam mahdi calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu soo saariyay calayhi salaatu wasalaam runtii waxyaabahaas oo dhan dadku ma si waxay u fasirteen oo aan xayaatada bini aadanka aan waafaqsanaynba si aan nolosha aan ku jirinba innaba aan meelnaba aan ka soo galayninba waayo dad istiraade ninka dhirka badan iyo dameerkaasan sugaya de weligaa waxaad sugaysaa wax jirana ma aha wixiina waad ku dhex jirtaa waxay manayaan isagoo kula jooga waana ku dhex jirtaa waa uu joogaa waqtigii waan ku jirnaa zamankii waa zamankii zaman waa waqti zaman macnaheedu markaad fasirtidna waa waqti waqtigiina waad ku jirtaa adiguna waa fasiran laadaay si waxaad u fasiratay ama lagugu fasiray amba waafaqeenba sunnat alxayaa sunnat albashariya nolosha ilaahay ugu talagalay dabiiciga oo maanta nolosha ma aha khiyaali waa wax xaqiiqa ah ilaahay kaga sugan tahay wax jira waa runtaa marka uu fiirsato marka xadiis rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa weeye marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam dameer buu ku sheegay kuma oran waa faras ma oran waa awr xitaa waqtiga waxa la raran jiray badi waxay ahaayeen waxa geela ayaa ugu badnaa oo safiintu saxaraa baa la oran jiray marka uu sii fiirsato waxa arkaysaa in مثلا codka dameerka oo kale markaad eegto tareemada waa sax iyo maraakiibta adiyad waxay leeyihiin codka dameerka ay leeyihiin waa sax markaasaa rasuulka markaa ma oran waa faras ama waa awr ma oran wuxuu waa dameer buu yiri marka waxa waa salaadka waqtiga iman doona ayaa waxa yeelan doona codka dameerka in tareenka markuu qaylinayo oo kale waxa weeye sida dameerka ayuu soo koray buu leeyahay markuu qaylinayo maraakiibtuna waxa weeye waa sidoo kale dayruhu xitaa codkooda gaadiidka xitaa muxuu ahaa kale baabuurta muxuu ahaa la fuulo la raaco waxa weeye codkooda wuxuu u dhow yahay codka dameerka marka hore dameerka uu dajaal wataa waxa weeye waxa inoo cad inuu yahay muwaasalaadka
ama muxuu ahaa gaadiidka casriga ee soo bixi doona aakhir zamanka maanta in lagu jiro waa waqtiga maanta lagu jiro nacam marka waxaan daawan doonaa cajalad laga duubay dameerka dajaal oo axaadiistii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad ka maqli doontaan. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. 3 إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا وأعوذ بك من فتنة الممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم. وإذا العشار عطلت لتتركن القلاص فلا يسعى عليها. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يخرج الدجال على حمار، له حمار أحمر طوله 60 خطوة. يتقدمه جبل من دخان. تحت الدجال حمار أقمر، طول كل أذن من أذنيه 30 ذراعا، وعرض ما بين أذنيه 40 باعا. له سروج وفروج، ويجلس المسافرون بين أذنيه. تطوى له الأرض منهلا منهلا، يتناول السحاب بيمينه، ويسبق الشمس إلى مغيبها. ويخوض البحر لا يبلغ حقويه،
وإحدى يديه أطول من الأخرى، فيمد يده الطويلة فيخرج من الحيتان ما يشاء. أمامه جبل من دخان، وخلفه جبل أخضر. يأمر النهر أن يسيل فيسيل، ثم يأمره أن يرجع فيرجع، ثم يأمره أن ييبس فييبس. يأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك. يدعو رجلا يضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. يسيح الأرض كلها في 40 يوما، ويحبس الشمس، ويكون معه جبال من خبز وأنهار ماء ونار تحرق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أحدثكم هذا لتعقلوه وتفهموه وتفقهوه وتعوه، وحدثوا به من خلفكم، وليحدث الآخر الآخر، فإنه أشد الفتن. أشد الفتن. أشد الفتن. أشد الفتن. الدجال يجتاح العالم. haddii marka aynu fahanay dameerkii dajaal inuu yahay muwaasalaadka casriga ee maanta jira, marka kuma ayuu noqonayaa markaa dajaal? dajaal wuxuu noqonayaa waa quruumahan maantay wadamada Yurubiyaanka ama reer galbeedka la yiraahdo, dadka alifay ama soo hindisay muwaasalaadkan sida tareenka, markabka, diyaaradda, waxyaabaha maanta dadka ay ku safraan waa kuwa sameeyay. marka waxa weeye dajaal wuxuu noqonayaa dadka reer galbeedka saas macna sheegay. dajaal waxa weeye waa quruumahan reer galbeedka awgeeyay sameeyay gaadiidka casriga ee maanta la isticmaalo. waa sax. fahamkan marka jamaacada Ahmadiyya waxa uu ka imanayaa waa fahamka Mahdiga calayhi salaam, asaasaha jamaacada Ahmadiyya Mirza Ghulam Ahmed. marka waa fahamka yani waa faham waafaqsan kitaabka quraanka ah, axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka waxaan tusaynaa sawirka Mahdiga ayaan tusaynaa si aad u aragtaan suuradda Mahdiga. marka waad arkaysaa markaad eegto sawirka Mahdiga, markaad eegto inuu yahay adoon alla ka baqo jiro, nuur baa ka muuqda wajigiisa ka muuqda. marka waxa weeye waa asaasaha jamaacada Ahmadiyya, waana imaam Mahdi. isaga ayaana magac ahaan ah
ah صح. nebi ciise عليه السلام. marka sidee u fahantay marka in mahdigu yahay nebi ciise iyo waa su-aal wanaagsan. iyo in mahdi ahaan in mahdi yahay nebi ciise yahay. waa sax, waa su-aal wanaagsan runtii. sideedaba mahdigu maaha waa imaam mahdi marka lagu oranayo ama aada maqlaysid. imaam mahdi waa shaksi uu ilaahay subxaana wa tacaala uu dooranayo. shaksigaasi maaha shaksi dadka ay dooranayaan. dadka qofka ay doortaan, iimaanka ay doortaan iyo iimaanku ilaahay subxaana wa tacaala uu doorto isku mid ma aha. iimaanku ilaahay doorto waa nebi. nebi ma aha muhiimaddu sharci inuu la yimaado. shareeco taalla ayuu raacayaa. maaha shareeco cusub waxa meesha yaalla, maaha shareeco uu keenayo. waa shareecadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waa shareecadii nebi maxamed oo ah shareecooyinka shareecada ugu dambeysay. waa shareeco kaamil ah. waa shareeco aan u baahnayn wax ka maqan aysan lahayn. marka shareecadaas ayuu dadka ka leexday unbuu ku soo celinayaa. darajadana maaha darajo qof sheekh iyo meel lagala imaado uu qaadi karo maaha. waa fahan samada ka yimid. fahamkaasoo ilaahay subxaana wa tacaala qofka imaamka uu siiyey waa iimaan nebi ah. nebinimaduna ilbaabkii nebinimada nagama xirna. ilaahay ummaddiisa waa u furantahay. ilaahay ummaddiisu mar walba wuu la hadlaa. waxay ku leeyihiin dadku marka aan axmediyada ahayn waagaa unba ilaahay ugu dambeysay oo dadkiisa la hadli jiray. maantii lama hadlo. waa raxmadda ilaahay markasta waa furan tahay. waa furan tahay raxmadda ilaahay. arrintaas Ismaaciil waxa weeye imaam mahdi calayhi salaam cilmiga wuxuu kala imanayaa xagga alle ayaa cilmiga uu fahansiinaya fahamka sax ee kitaabka quraanka ah. marka hanuunintan uu hanuunayo muslimiintana waa mahdi. waa sax. masiixiinta oo markaa uu khaalidkan ay ku jiraan ee nebi ciise ay ka dhigteen ina ilaah na uu saxayana waa nebi waa magacahan waa saliibada uu jibinayo waxa weeye nebi ciise. waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa sheegtay waxa weeye wuxuu yaksiru saliiba. waarun wuxuu jabinayaa buu yiri muxuu ahaa saliibku ayuu jabinayaa. marka geesna waa ka imaam mahdi oo wuxuu xanuuninayaa muslimiinta. geesna waxa weeye waa nabi ciise oo wuxuu jabinayaa wuxuu burinayaa caqiidada baatilka ee masiixiyada. marka Ismaaciil aad ayaad u mahadsan tahay. haddii alla ka dhigo barnaamijka dambe ayaynu sii wadi doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. لا شك أن محمدًا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان.